waxaa dhammaanba waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Holland ay haysta dhalashada iyo waliba deganaanshaha lala socodsiinaya inaan la ogoleyn haba yaraatee in hablaha la gudo da' kasto ay yihiinba hadday joogaan waddanka Holland gudihiisa haddii dalkii hooyo fasax loo tago intaba iyadoo la isu diyaarinayo waalidiinta qaar inay kuleelaha tagaan dalkii ayaa waxaa laga maarmaanay inay ka feejignaadaan in hablaha la gudo taasoo ay dhici karto waalidiinta gudaha joogtahay inay culays ku saari karaan dokumenti ayaa jira af Soomaali ku qoran oo laga heli karayo xarumaha kala duwan ee ururka dalladaha EFSAN ee waddanka Holland ee Soomaalidu ay leedahay oo faahfaahin ay ku taala ku saabsan guud ahaanba inaan la ogoleyn in la gudo hablaha gabadhaada oo gudaa waxay keeni kartaa cawaaqib xumo xagga caafimaadkeeda iyo waliba qulub gala inta ay nooshahay adiga oo laftaadu ciqaab mutaysta Soomaalida Holland kuwa dhalashada iyo kuwa deganaanshaha ka feejignaada in aad hablaha gudaan oo iska ilaaliya raaca nidaamkii sharciga u degsan waddanka aad degantiina aad dokumentigiisa haysataan ee Holland